alla mahadlaho mudan ammaan waana loo magaane rabbi baa macbuud xaqa ahoo muran la'aaneede rabbi baan midnimadiisa uga marakacaynaye rabbi baan musaawaad lahayn lala maseeyaye rabbi baan tashbiih naga mudnayn amase mitaale rabbi baan miduu suga ta'wiil loo macnayn karine rabbi baa masiiba iyo khayr maamuloo wadaye rabbi baan miduu ku qadaro mara loo heleen rabbi baan miduu ku qadaro mara loo heline rabbi baan maraykan iyo ruush mirir ku qateene muduuse u qadarayo inay madasha gaaraane aakhirana naaray muteen geliya molkeeda nebiga mutaabaca leh iyo maxabba dheeraada mubtadica salliga diidan baa mudan cadabtiye allaahuma salli calaa sayidina muxammed aadmiga manida laga khalqaye madaxa tagaya oo maxalka hooyadii sagaal mawle ku ilaashay mugdigana lagu qudiyaan mara loo heline asagoo mahiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ومحدثك له تبارك وتعالى ويواجب تهي إن كل شكرنا ونمهد علينه حل والباء هي حالة والباء فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال الله أسول ليال إنه نعمي نعم أن لا تركوبك وأن لا حسابك سيدو إنه الشيء وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم هذا إلهي نعموين كي سترسان مكو بكرتان الله تبارك وتعالى وميتك الرافة ونحرست آيات كلا وحو رب إلهي هاي نعموين كالله مكو دا ترسان مكو بكرتان إنسان كنا وميت ظلمي بدن أو كفر بدن نعموين كاسي ولا ليالوي فربدين سيداس الله ونو شيغي waxay culimadu yiraahdaan saddex nooc baa loo qaybiyaa qayb waxa la yiraahdaa waa nicmatul khalqi wal iijaad waa nicmada ku saabsan abuuristii layna abuuray iyo ahaysiintii layna ahaysiiyey iyo keenida layna keenay san ognahay waqti waxaan soo marnay ruux walba uu ahaa waxaan jirin maalin baa la abuuray marxalado kala gedisan buu soo maray mar baad dhibic biyo ahayd mar baa maadadii aabba ka timid iyo tii hooyo isla falgaleen mar baa waxaad ahayd xinjir dhiig ah mar baad ahayd cad yaroo hilib ah mar baa lafihii iyo xubnihii la bixiyey markii xigtay baa hilibka iyo haragga korka laga saaray markii lagu dhamaystirayna nafta iyo ruuxda lagugu afuufay muddo ilaahay ku talagalay markaad meesha ku jirtay saddex mugdi hoostood ood ku noolayd ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala jidkaad ku soo bixi lahayd kuu sahlay thumma as-sabiila yassara waa timid adduunka sa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu sii diyaariyay baad meesha ugu timid
ونوع الله قيبت اللبادة وحي علماء يدهدان نعمة الإمداد والإعاشة أسبابتي أتكون نولان لهيد وديارة ذو تمت هودي أتقاضان لهيد وديارة أكسجينتي وهذا الديار نين هذا كبرين وهذا عدنا أدب فدين أي إلهي كوسي دياري هو يجيب لغوسي دياري على الكي يمرضي لغو قوان لها ديارة هو يا أبو دنعيها كاتاغن وأذيك السيدات كوكوري لهيد أتاغن أي إلهي كو دياري عبتان كي عنتدي باسي ديارة الله تبارك وتعالى هول اسكو ركبان وديار ايات تيمد oo leena keenay mudada ilaahay ku tala galay inaad adduunka joogtana nicmooyinkaas aad ku gadgadoomaysaayo kolba ilaahay tabaaraka wa tacaala dhinac uu ka siinay nicmada saddexaad ee kulli ka qiimo badan labadaaba waxay tahay nicmada la yiraahdo nicmatul is'aad waa nicmada keenta bini aadamku inuu liibaano adduunka inuu raaxaysto nasto aakhirana inuu liibaano ilaahay jannadiisa iyo ridihiisa helo nicmadaasi waa nicmada iimaanka iyo islaamnimada inta kaleba waa layna qabaa gaalka iyo muslimka ki ilaahay nacabiya iyo midku jecel yahayba inta kale way ka dhaxaysaa maxaa ka dhaxeeya abuurku waa ka dhaxeeya adduunyaduna waa ka dhaxaysa kuraasteeda xoolaheeda caruurteeda caafimaadkeeda waa ka wada dhaxaysa laakiin nicmada khaaska ah waa nicmada iimaanka iyo islaamnimada taas ilaahay dadka nagalama dhaxaysiinin dad khaas oo ilaahay siiyay tabaaraka wa tacaala nicmadaas marka ka wada qaalisan inta kale oo dhan ka qaalisan abuuristaada oo ka qaalisan jiritaankaaga oo ka qaalisan xoolahaaga oo ka qaalisan caruurtaada oo ka qaalisan wax kastood hayso ilaahayga tabaaraka wa tacaala marka inaga dhigay dad muslimiin oo ahlul iimaan ah baa mudan inaan u mahad celino tabaaraka wa tacaala wuxuu ilaahay bixiyay wixii ugu qaalisan oo baan haysanaa wax ilaahay bixiyay maxaa u qaalisan iimaanka u qaalisan iyo islaamnimada waxaa nabigeena ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yiri Allah tabaaraka wa tacaala adduunyada wuxuu siiyaa dad uu nacab yahay iyo kuwa uu jecel yahay laakiin iimaanka ma siiyo dad uu jecel yahay dad aan ahayn haddii la isweydiiyo maanta dhahno yaa ilaahay jecel yahay yuusan nacab yahay maanta haddii la isweydiiyo dad badan waxa laga yaabaa inay yiraahdaan alla wuxuu jecel yahay taajiriinta qaar waxa laga yaabaa inay yiraahdaan alla wuxuu jecel yahay madaxda qaar waxa laga yaabaa inay muddo meel ku dhufto laakiin xaqiiqadu waxay tahay alla wuxuu jecel yahay dadka iimaanka leh islaamnimada haysta dariiqa rabbina ku toosan oo daacada haya kuwaas oo ilaahay jecel yahay inta waxaan haysanina alla waa nacabi ilaahuma yaduunka oo dhan wada haystaan waa dad ilaahay nacay weeye tabaaraka wa tacaala rabbigan tabaaraka wa tacaala nicmada qaaliga ah meelo badan buu inagu xusuusi waa doorasho ilaahay ku doorto khalqiga kala baxay waa doorasho ilaahay baa adoomadiisa intuu fiiriyay sida xadiidka nabiga ku sugan sallallahu alayhi wasallam allah tabaaraka wa tacaala adoomadiisu mugdi bay ku wada jireen markaasuu rabbi tabaaraka wa tacaala iftiinkiisa u qaybiyay waa iimaanki uu ku sayray waa u qaybiyay maalinkii iftiinka la qaybiyay ruuxii wax laga siiyay waa ruuxa islaamaya ee diinta qaadanaya ruuxii nuurka rabbi qaybiyay ka qadayna waa ruuxa aan marnaba iimaankii islaamnimada qaadanayn marka allah tabaaraka wa tacaala ina siiyay waxaan dhihi karnaa xaqiiqo weeye waa doorasho rabbi tabaaraka wa tacaala معناها قرآن إلهي نوغت المام وربي وحيري ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الضوء إذا وحن كدر طيب ألي وانكح الشيء وانكلب حي
kuwa aan qur'aanka dhaxal u siiyey yaa qur'aanka dhaxlay oo qur'aanka bartay oo qur'aanka rumeeyey oo qur'aanka ku dhaqma dadkii ilaahay doortay ayaga marka kala fiican saddex bay u qaybsan yihiin mid waa dhaalim linafsi midna waa muqtasid midna waa saabiq bilkhayraati biidni illah dhaalim linafsi culimmadu waxay yidhaahdaan waa dad badan oo muslimiinta ka mid oo ahlul iimaan ah laakiin waajibaadkii diinta wax badan oo ka mida way dayacayaan waxna way la imaanayaan wixii ilaahay ka xaraameeyey waxna way iska qasanayaan waxna way iska ilaalinayaan waa muslim galab ah marna naf iyo shaydaan baa jiidanaya marna waa isa soo qabanaya ka waa dhaalim linafsihi maxaa yeelay khaladka weyn ee uu galayaay cuquubada ka dhalanaysa dhibka ka imaanaya isagu ku soo noqonaya nooca labaad waa muqtasidka waxay culimadu dhahaan waa ruuxa muslimka ah ee mu'minka ah ee wixii ilaahay farayna waajibaadkii la yimid laakiin aan wax kale ku darin wax sunna ah kuma darin laakiin waajibaadkii waa ka yimid si fiican buu uga soo baxay xaaraantii waaweynay iyo dembiyadii waaweynaana wuu ka fogaaday laakiin kuwa yaryar iyo waxoogaa kaleeta wuu ag marmaraa aad ugama ag fogo waxoogaa kale beerta wuu agteedu daaqdaaqa laakiin ma galo kaana waa muqtasido xaaraantii waaweynayd waa ka fogaaday waajibaadkii waaweynaa waa gutay laakiin xaaraantana tii waxoogaa aan aad u waaweynayn kama tegin ee waajibaadka uu gudanayana wax sunna uma raacsana kaa waa muqtasid hadduu saa ku dhintana biidni illaah ilaahay jannadiisa wuu geli ka saddexaad ee ugu fiicani waxa weeye dadka ilaahay doortay waa qolada la yidhi saabiq bilkhayraati biidni illaah waa dadka qayrkood ka hormaray oo wanaagga kaga hormaray waa qolada aayad kale alla ku yidhi waasaabiquuna asaabiquun ulaa'ika almuqarabuun waa dadka ilaahay agtiisa la soo dhoweeyey wey culimmadu waxay ku tilmaamaan qoladaas waa dadka waajibaadkana guta waajibkana sunno u dheerta salaadihii waajibka waa gudanayaa sunnuu ku daraya soonkii sunnada waa waajibkii waa soomayaa sunnana waa ku daraya xajkii waajibka waa gudanayaa sunnana waa ku daraya sakadii waa bixinayaa sadaqana waa ku daraya yacni waajibaadkii sunnaa u wada dheer ta labaad weeyaane xaaraantii waaweyneed intuu ka fogaado buu wixii ka ag dhowaa oo dhanna ka fogaanaya ruuxaasi marka waa ruux tegay waayo ruux la gaadhi kara ma ah waasaabiquuna asaabiquuna ulaa'ika almuqarabuuna waa dad tegay waay saddexdoodaasba ka ugu hooseeya iyo midka dhexe iyo midkaa tegayba dhammaantood waa dad ilaahay doortay wey sababtu maxay tahay waa dad ahlul iimaan ah oo marba hadduu ruuxu iimaan ilaahay siiyo caasiba ha noqdee marba haddii ilaahay iimaan iyo islaamnimo ku siiyo wax qaali aad haysataa wax qaali ah baad haysataa oo nabigeenna waxaa ka sugan sal alay wasalam inuu yidhi maalinta qiyaamada dad waxaa naarta laga soo saari doonaa dhuxuloobay dhuxul noqday oo qalbigooda laga helay wax quraanjada yarta leeg oo iimaan ah mithqaala darra min iimaan wax yar oo iimaana qalbigooda laga helay intaasay jannada kaga soo baxayaan oo ay naarta ku galayaan waxaan u jeedaa naarta kaga soo baxayaan oo jannada ku galayaan marka allah tabaaraka wa tacaala walaalayaal iimaanka ina siiyo islaamnimada ina siiyo wax qaaliya buu ina siiyo nicmo qiimo badan baa ilaahay ina siiyo tabaaraka wa tacaala waxaad ku garan kartaan inay nicmo qaali iyo qiimo badan tahay alla tabaaraka wa tacaala nicmadaa iyada ah dadkii fahmay oo siday tahay u gartay waa dadkii xoolahoodii dhaafsaday oo dalkoodii dhaafsaday oo qaraabadoodii dhaafsaday soo ma garanaysaan nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadiisii raggii rumeeyey oo iimaankii iyo islaamnimada qaatay markay laba arrimood isu qabsatay inay dalkooda ka qaxaan ama diintoodu halis gasho dalkoodii bay isaga tageen inay xoolahooda waayaan ama diintooda waayaan markay isu qabsatay xoolahoodii bay isaga tageen
qaraabadoodii iyo dalkoodii inay waayaan iyo inay diintooda waayaan markay isu qabsatay qaraabadoodii iyo dalkoodii bay isaga qaxeen oo ka carareen ardul habasha oo inaan aqoonin oo inaan waxba ka garanaynin ay diintooda ula carareen sababtu maxay tahay qiimaha diinta ay garanayeen ka qaalisan dalkaaga oo ka qaalisan xoolahaaga oo ka qaalisan naftaada oo ka qaalisan caruurtaada iyaday la carareen say ula badbaadaan laana qiimaha shaygay garteen diintani marka walaalayaal ilaahayga ina siiyay tabaaraka wa tacaala u fiirsada xikmadda rabbi waa waxaan la iibsan karin way iimaanku waa waxaan lacag lagu iibsan karin waa waxaan xoog lagu qaadan karin waa waxaan si kale lagu heli kareynin ilaahay inuu ku siiyo meeyo tabaaraka wa tacaala soo ma jeed waxa laga yaabaa u fiirsada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam xilligii waxyigu ku soo degayo rasuulka u ah rasuulka ilaahay ka dhigay tabaaraka wa tacaala oo aayaadka cad ay muuqdeen inuu rasuul yahay ku tusay adeeradii baa la joogay horay bay u yaqaaneen wiilkoodii buu ahaa nin qaaliya buu ahaa amiin baa la dhihi jiray aad bay ugu kalsoonaayeen markuu ilaahay hadalkiisa la yimid iyo waxyiga nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam adeeradii buu ilaahay iimaanka ka qadiyay nabi maxamed adeeradii rakamida away abu lahab soo nabiga lama joogin sallallahu alayhi wasallam soo adeerkii ma ahay haddana rabbul kawn tabaaraka wa tacaala uguma deeqin iimaanka waa ka qadiyay waxa ka cajab badnaa abu talib oo nabiga adeerkii ah sallallahu alayhi wasallam oo nabiga koriyo ka qayb qaatay korintiis oo markuu nabinimada la siiyay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam oo dacwada bilaabayna garab istaagay oo quraysh iyo odayaasheedu u mari weyday oo difaacay ilaa intuu ka dhimanay ilaahay tabaaraka wa tacaala iimaanka uguma deeqin daqiiqadii ugu dambeysay isagoo dhimanayo naftu hayso iyo nabigu u yimid sallallahu alayhi wasallam waa adeerkii laba oday oo odayaashii reer quraysheeda la fadhiya markaasuu nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam adeerow kelima dheh laa ilaaha illa allah kelimadaas ilaahay agtiisaan kugu xujaytamay halka kelima ii dheh labadii oday ag fadhiyay gaalada ahaa baa waxay leeyihiin abu taalibow ma xilligan iyo xaaladan iyo da'dan iyo marxaladan baad aabaha diintiisii ka tagay cabdul muttalib farha yeelin isceebayn nabiguna waa ku celiya iyaguna waa ku celiya nabigu waa ku celiya sallallahu alayhi wasallam iyaguna waa ku celiya ilaa markii dambe naftu ka baxday isagoo leh ala millati abdul muttalib diintii abdul muttalib baan ku dhiman buu nafti baa ka baxday bal fiirsada ilaahay abu talib waa ka qadiyay iimaanka nabi maxamed qaraab ahaan bay ugu xigeen sallallahu alayhi wasallam xilli bay la joogayeen oo la noolaayeen magaalay la joogeen inaga u fiirsada magaalada Makka ama Madiina iyo halkan intee u dhaxaysa imise yani kilomitir kumayaal kilomitir baa u dhaxaysa Soomaa zamankii iyo u fiirsada nabi maxamed joogay sallallahu alayhi wasallam iyo zamankeena maxaa u dhaxeeya taqriiban 1400 iyo ziyaada sana u dhaxaysa zamankuna waa inaga fogyahay makaankuna waa inaga durugsan yahay xigta iyo qaraabana lama nihi nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam haddana maca dalik wixii qaraabadiisa qaar kamida laga qadiyo loo diiday buu ilaahay inaga ina siiyay tabaaraka wa tacaala war soo wax qaaliya ma soo wax qiimo badan ma allah tabaaraka wa tacaala marka ma hadda maanteed iskale nicmada rabbi meelo badan buu inagu xusuusi quraanka kariimka kamid wadhkuru ni'matallahi alaykum wama anzala alaykum min alkitabi wal hikma ya'idukum bih xusuusta ilaahay nicmooyinkiisa faraha badan oo xusa gaar ahaan waxaad u xusuustaan kitaabka uu idin soo dejiyay iyo sunnada uu idin soo dejiyay kitaabkan ilaahay idin soo dejiyay idin waafajiyay inaad rumaysaan nicmadaasaan wax loo dhiga lahayn gooni u xusuusta al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diinan diintan ilaahay baa raali nooga noqday ilaahay baa nicmo uu ina siiyay way waa nicmo dhameystiran nicmadaasi walaalayaal waxay u baahan tahay marka inaynu garanno qiimaha ay leedahay haddii ayna nicmada qiimaheeda garanin si fudud bay inoo dhaafi haddaadan shayga garanaynin qiimuhu kuugu fadhiyo si fudud buu kaaga tegi
يا هذا مثلا قرانيس واحد يستا مثلا ذهب إنه الذهب يهينا واد قرانيس إنه الذهب يهينا واد قرانيس سوميل هذا قليل ميس وميل هذا دقي ميس وصفي عنه إلى ميس لأن قيمه زاد قرانيس haddii dhagax lagu siiyo dahab ah laakiin aadan garanaynin inuu dahab yahay seed ula dhaqmo waa dahab laakiin ma garanaysid inuu dahab yahay maxaad samaynay haddaad doonto saxarada isaga tir oo kaadida isaga tir waa dhagax caadi ah sooma qiimo ma leh laana ma garanaysid wuxuu yahay shayga haddaadan qiimihiisa garanaynin waa tuuri haddaad se qiimihiisa garanayso waad ku fara aday allaha marka walaalayaal diinta ina siiyay نعمدا وين نوجود دقي الله سامح هذا إسكاله تبارك وتعالى سؤال شو واحد تاي مر نعمداس هذين نقرنه ونكشكرنا ولا ينودين وانا لا ينوسي هذه نعمدا هذين نقرن وين ونكشكرين ويننا ولا ينقاضن وانا لا ينعقابي الله القرآن كوحكوا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم نعذابي لشديد هذا الشكر دان ويدين كردينية هذا الشكر اللي يدين كواينا عذاب كيغ ودرية بمعنى ويدين عقابي صور بتبارك وتعالى تصالى إن مسين القرآن الكريم هذه النعم كإله يوم النعمة الدنيا هالنقطة من النعمة آخرها النقطة كالشكرين ويدو ما تشوقيس ولا قاعدة أمان كهدات كالشكرين ولا قاعدة برواقد هدات كالشكرين ولا قاعدة عافيمات كدت كشكرين ولا جا قاعدة عرور تدت كشكرين ولا جا قاعدة دين تهدت كشكرين ولا قدافين يا إلهي مدين تبارك وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون دقمي أحد ومقالوا ضد بعدكن مجتمع بعدكن مجتمع عاصمة يا إستان كانت آمنة مطمئنة أمان نوي إستان رزق بلارن نوي إستان صنورو شو إنت أما هذا أمان نهشوا رزق بلارن نهشوا ومعاه كم أنتي بويسكو إستان نعمدي نوع أهيد بيكو كفريان شكر جديد بالجواه مركز إلهي محوق بدلي أمان كينا عبسي باللوجو بدلي رزقي واسع هانا قاتشا لوجو بدلي صوت محيط شكر جيب على جواي يا شكر جيب على جواي سيدا دبا النعمة هدات قرن ويدو وقاد كفردو جد كذا مريو ويدو إني تجي ساي شككم مجرو شككم مجرو والسنة الربانية تبارك وتعالى وعادة يدقني قانون رباني أول sidaas daradeed iimaanka iyo islaamnimada oo nicmada ugu weyn haysanaa waxay u baahan tahay inaan ka shukrino seen uga shukrinaa waxaan ka shukrinaynaa kow qalbiga inay qalbigaaga ku weynaato diintu oo iimaanku ku weynaado oo islaamnimadu ku weynaado oo agtaada qaali ku noqdo qaali inaad fahanto qiimaha uu kugu fadhiyo waa qodobka u horeeya qodobka xigay inaad carabka ka shukrido لأن سيد النبي صلى الله عليه وسلم إلهي أدونك وحب الرالي كأن نقضى إنه عبيتان عبه والحمد لله إله إنه عنطعنه وكذب الحمد لله إنت أصاب إلهي الرالي كأن نقضي دين إلهي كوسو ديشي الرسول كوسو دري النعمة أو كسيي إن أتكشكر داي أو عربك كشكر ده الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله تنجو هنوني أيام هذا الكلام حدوثا هنونين لهين ما نهنونين اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا هنون الله حدوثا شير لهين التوفيق ديس ما أنن هنونين ما أنن إسلامين ما أنن تكنين وحبا ما نقرن سيد عوام تعملها تاجنا إله يجيدها أنك لا أقولين نوعهم بنقول الله لكن بتوفيق الله تبارك وتعالى إلهي تبارك وتعالى إن قد لقى مجتمع مسلمة وبلشة مسلمة كسوة شيء خير يوانا كل شيء إلهي توفيق ذا إسكال تبارك وتعالى حد وحضر كيسادات فربضان الصومالية
ونعمة أنت كشكرين وهي إلهي كعشدي سو قار مدى أركين ملحدين والدين لا ويالأ والدين بأن هيسنين وصوماليا مركي النعمة كشكرين وهي بابنانك الله توري هذا رسكتك عليه ما بيستهيشان يا قار فربضان وصوماليا واحد شرك كنيسة ضحك علي قال هذا نيروبي أنا هذا كيم كنيسة صومالي ذا خاص وعباجرت صومالي ذا قالوا ذي كلي عقش يا إلهي ضدوا النعيوي هذا النعمة قرون ويدو تبنان قالوا قطوري ما يستاهي شيء سيدا هذا سوما سيدا دراد النعمة قيمة هذا هي معناها يكفر لذا إناد قرأته وتكفر أضيكته هل كاسي وحكا بالله ده صدح الرمضولا ليالان سكودرن سي إلهي النعمة إنه قد داهي وأن لا ينوغا قادنين نعمة سي إنت أنا قدك أوجد من هرته روح إلهي إيمان إيه الدين سيه الدون نوال ليباني آخرنا نوال ليباني الدون كوال ليباني والدين توحي كتوصي سادنت هذا ما هي مصلحة كوجو جرته روح عن دين لهين دنتي سما يقان روح عن دين لهين دنتي سما يقان لكن روحي الدين لدنتي سو يقان صوت محيطة هاي اللي كون كان أبورتي بهاجية وحي يجيب هاجية وحال ليه ماشاني صح معها ربا كاجا إيمانا يكله هل كاسيد أنت هذا كتير تاي مر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قرآن كوحدتك كهنونية شد لمره كأوجتوس نانتبض نلاش شدت كذا كلا جديسن كأوجفي عن أوجتوس القرآن ككتوسي يا عقيدة تأوجتوس وعبادة تأوجتوس ومعاملة تأوجتوس ونظام دقالة كأوفي عن ونظام سياسة كأوفي عن والدستوري الدولة نما كأوفي عن وأخلاق شد كأوفي عن وحو البوح أوفي عن يجيد كأوجتوس بقرآن كده كهرونين أو تصير صوت محيط هاي الدوامض السيدة ضبط دنت وضم يقانان دنت الله يقان دنت الله يقان مصالح لنا إلهي با يقان روحي ربي كتلقات وشرعي كتلقات وماشي ربي فري مرنا مصلحة ربي تصيب هلي روحي اسكيتشيو إلى هذا ورا نجا اسكو فلان اسكو في الله أحباب مرت نفتي سي هودي سي الشيطان باللود دين كدبنا عيد كلام اللور رادين ماي سجع قميص اسكو خربي سجع قميص اسكو خربي حيل الربيان تبارك وتعالى سيد القرآن كبير وش هي وحي عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن شيء كهتان بالغيابا خير كنا كجرا وحبذنا اللي نقول كري لا خير كجرا مصلحة إن يضندنا كجرا إن هذا واحد شعلاتان بالغيابا اللي يدين ككري واي شر كنا كجرا يعني ما تقانا دني حال قدام بيسي والله يعلم وأنتم لا تعلمون إلهي بادنتيني مصلحة دينا يقانا إذن كوحبا ما قرنا إيسان بني آدم كوحل إلى هذا قلب جيسو واسيدة إندها أوكله إندها مثلا كويا مدح حاجة إندها مدح كويا قرمي وح أركان سيدي وحكو أركان وحي وحكو أركان مركي هلان نور يفتين كلا أو كرعة على هذا نور معاكسة إيش مركا إفتين كلا كرعة بي وحركتها صما لكن إفتين كلا كرعة هدي وإذا إيش وحما أركرت سو مساجد هذا ما نعرفه نلقطن هدي اللي ينود ميو قد عرنته إن ده نيو إنه يا الله حبا أركمين سو ساسما إن دو محاول يحكوا أركان أما إليس كقرح دينه كرعة أما إن إليس كلا كرعة أساسي يحكوا أركان قلبي بني آدم كنا والله متباليو وحو وحكوا أركان إن إفتين كوحي كرعة إلهي هذا الكيسة إيمانك مركا إفتين كيسو كرعة بو قلبي مركا وحكلا أركا ووحا صحسن وحا خلدن وناقة حمانته مصلحة مفسدة مركا سو كلا الصارة لكن قلبي هدوسا إيمان قلين وأوصن نور كإيمان كقارن قلبي سي مكدب كتيرا إن دلان أو كلا ويمر ومثل القرآن كربي عبريو فإنها لا تعمى الأبصار
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور إن ربالكم ميتك إن دهنوا آد بيش معه لكن إن ربالك الرسمي وقلبك إن ربالوي يا وإن بصيرة دا أدوي يا ونقطة كريته سيد سؤال يقول هذا عندك جراد لي جراد كأقدم بعندها الله صاري هل كان واحد كوتشرا وماله فوين بيبرك سيد أصدرات يدول الليال إلهي تبارك وتعالى مصلحتنا إن تصي ورجيت كاسمرة مرة بتان آخرين الليبان تان بلي أوفير صدا عد عن إله الرومينين أون كتابك الرومينين أون سنة الرومينين أو قالك أما ملحدك إلهي بان يقول أري هدو بروفيسوري أنت سو شهادو وتوا بروفيسور عمري جيسة أنتو الدنيا دبرنا هاي بعد حتى محو هاي ستيتن سنة سجاش سنو برنا هداد ويدي سور جريدة محا كدم بيا كما جوابي كر يا سما وريده روحي وأنا قادنا يو مركو نفتو كبحذي إنتان قد لو متر أو قادني أو مركو دودو بنوينك جليني كدي من عرضة كرهني بروفيسورو هل كان محا كدم بيا ما كنت جوابي كرا ما كنت جوابي كرا يا محاميشن روح وكلا كل مياه طيب هل كهدي لقتها حاجة لو قدام بيدونه معرضة ضدك عني دونته محالات كلا قدام بيس آدم هني حجابه آياه قدام بي وقدام بي حجابه تجي دونه كما جوابي كرم يا وحي قرن كران ويعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون مو قال كالدنيا ذي وعك قرن لكن آخر وموجه وحبك ما قرنيه لكن دينك يا إيمانك يا قرآنك وحو كتوسي الدون كانت ضناها وحا أقف في عبو مصلحة هذا كتوسي جيد كادو مريلا آخرنا الجيريد اللي قبل الله يوحي كدم به وحي دعي الضونا أيو تلابة كوسينية مركز وحي وكليه جيد كوا كاسي كان واجد كان النار توقلا كان الجنة توقلا كاد مريد هذا كوتالا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليبقى خيارك حاجة مر أدو هدات كا قادنا النار بتكو أروري هدات كا قادنا الجنة تكو أروري وحي رنبا تفاصيل لينسي مركز الله وحي تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى هدي هنون كي دين يمادو روحي هنون كي قرعاي الدون كان اللومي مايو آخرنا النار قلي مايو سو ليبان ما الدون كان اللومي ميس وجدكو كل الله حن مايو آخرنا النار قلي ميس ليبان لوضبا حدي وحي إلهي سوجدي أتكتشت ستنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا روحي وحي جيجي ذكري كتشت صدون ضنين ما برنين سكما تعلوشنين ماكو عمل فلين مرادين وقتكم مبدحنين ما بدنينين با روحي سكتشت سدا نول العديدي أبو ليه وأدونك آخر مركو تجنا يسقوا إن دلاء بالكين مركز دود يا وحوليه ربي يو أدونك وحب من أركي شريم حا إن دلاء أنت الله يكين مركز ربي وحوليه آيات كيجيبها كويمت مركز ساد إسكا إن دتيرتيو كتكتي هذه كان السيدة أصلا نار تلاقى تجي يومانت أدونك هو خسارة آخرنا هو خسارة سمارتان محل الرأي مركب ولا ليال ورتني عمدنا إلهي نسي الحمد لله عندها إلهي أنا قم حد علينا تبارك وتعالى أن كفر أضيقنا صدح قضبنا إنه سكدرنا صدح قضب أنا سكدرنا والشكر يقول نقون كران نعمدا صدح قضب محيين قضب كوجه ريوحوي دين تن إلهي كسية إيمان كان يقران كان للصود شيء النبي قال للصودر بل إلهي سيد ينودني يفيري الله سيد ينودني يفيري ملك بالصودر ملك جبريل بالصودر نبي محمد بويم صلى الله عليه وسلم فرين ربي بسوق جالس نبي جينا حل صاري صلى الله عليه وسلم نبي محمد بحل صاري فرين تجود ببالي إلى إنك إن سوق جالس أنت محل يسود بدقي وأديك الدنت هذا يا إلهي نحريس سوفير صد إنك الدنت أنا وأنت صورا ليسود بدقي ساس دراد القرآن كيا لو سودتش والقرآن كم قوة أنت الله قلت لك إنك النول بالله إنه قلت لك قرآن ك إنك الله إنه قلت لك صدق قضاء مركان سكودرنا بالاختصار قضاء ككوبادي وحوي دين تنا أمبرنا دين تنا إنك إنه سودكتة وإنك إنه الله قلت لك عليه بلورت محي كهل ليس أمبرنا يا هدي وراق لجو صدره وراق هدي لجو صدره
madaxweynaha hadda lillahi almathalu al'ala waraaq baa lagu soo diray mesela madaxweynaha waraaq uu soo diray dambaalkaas waraaqdaas ku timid waraaqdaasi waxba ku yaala adiga ku khuseeya madaxweynihii bayna ka timid maxaad sameeyay marka ugu horeey ya waraaqda markaad furato maxaa ugu horeey sameeyay ya soo ina akhrisato ma af aadan garanaynin bay ku qoranta Soomaali baa tahay Ingiriis bay ku qoranta maxaad sameeyay ya wariya Ingiriis yaqaanadi Sooma wareeber berbal hayli raadiyo nin Ingiriiska yaqaan oo fahmi kara kadibna Ingiriiski waa lagu akhrin maxay leedahay waxay leedahay hebel hebel waxaas laga rabaa saas baa laga rabaa waxaas loo haya markaad fahanto baad ka jawaabi kartaa waraaqdii lagu soo diray rasuusaas ma hadaadan fahminba ka war hadaadan waraaqdiiba fahminba xagee laga jira laxdukan col iyo abaarba moog waxba ma kala ma garanaysid sidaas daraadeed Allah kitaab tabaaraka wa taala kitaabku inoo soo diray iyo risaaladan la inoo soo dhiibay marka ugu horeysa maxay u baahantaa marka ugu horeysa bal inaad ka war doonto fahantaa ka bilaabata inaad fahanto horto maxay ka hadlaysaa maxay ku faraysaa maxay ka reebaysaa maxay ku jideynaysaa maxay ku tilmaamaysaa waa inaad barato aqeedada diintu jideynayso waa inaad barato shirkiga iyo tawxiidka kala barato waa inaad kala barato sunnada iyo bidcada kala barato waa inaad cibaadada qaabkaad rabbiga u caabudi lahayd barato waa inaad akhlaaqda diinta barato waa inaad barato waajibaadkaaga aad barato jidkaad rabbiga u mari lahayd jidkaad jannada u mari lahayd naarta jidkaad kaga badbaadi lahayd jidkaad rabbi ku raali gelin lahayd hadaadan baranin ma keeni kartid soo saasba hadaadan baranin ma keeni karaysid diinta tawxiidka u horeeya la ilaaha illa allah baa u horeysa hadana la ilaaha illa allah cilmiga laga horeeyay fa'lam annahu la ilaha illa allah la ilaha illa allah oo diinta asaaskeeda iyo bilowgeeda aqoonta laga hormariyo laana aqoon la'aan la ilaha illa allah hatta ma socon karto salaadi oo tiirka labaad soo tiirka labaad ma aqoon la'aan ma soconayso saddex goor buu nabigu ku celiyay nin agtiisa ku tukaday saddex goor arkac salaada ku noqo waxma tukanin bale dana waa soo noqdo war ku noqo hadana waa soo noqdo war ku laabo rasuulullaahi waxa ma aqaana intaas waa salaadiga salaadana aqaanaba waa inta halay baro markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam salaadii u bilaabay saas marka salaadii isu taagto sidaa dheh salaada saa ku gal saa u rukuuc saa u sujuud sidaa yeel salaadii baa la baray soo ma jeedaa soo ma aragtaan hadaanan wax baranin oo wixii aadan baranin adeer ma keeni kartid haddaad iska qasbato uun ma keeni karaysid sidaas daraadeed diintan asaaskeedu waa barasho ninkii barashada dayacay waa nin khayr la garab mariyay nabigeenu muxuu yiri sallallahu alayhi wasallam man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din ilaahi haduu khayr kula rabo diinku ku fahansiin hadaan khayr lagu la rabina diinta fahamkeeda lagu garab marin wax kale dhan waad u adkaysan waqti baad u haysaa laakiin diinta barashadeeda uma adkaysan kartid ya kaalay darsi dhigayso cibaadada saxo dahaarada saxo salaada saxo ma baxamili kartid waraadaro naga daawax waanu iska garanaynaa dadka isaga dayan waa iska tukan waxa nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis xasan kaga sugan nin baa 60 sano tukanay 60 sano markuu tukanay buu ilaahay u tagay tabaaraka ta'ala 60 sano tacabkood yuu isleeyahay baa meesha ku yaal khasnada kuugu jira yaa kawn markuu ilaahay u tagay 60 sanana tukanay hal salaada meesha uma taal wala sala waahida hal salaada hatta uma taal nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ninka isaga 60 ka sano jahli inuu ku tukanay mar rukuucda ka khaldanay marna sujuudu khaldahay cimrigiisa ma basaxaninba bal ka warrama dad badan ba ataxiyaadka iska jajabinay oo marba ganaca kaga istaagay oo salaadii ku rafacsanta qaar badan baa faatixadii ku tumana oo dan kala hay qaar badan baa markay rukuucayaan iyo sujuudayaan Allah yaabaysa saasay rabaan in ilaahay janno kaga helaan war jannada ma wax raqiis aad moodaysan jannada balli banaanka ka urursamay idin la tahay ilaahay jannadiisu inta waa ka qaalisanta nabigeena wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam
ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة بدعة الله وقالي بدعيسنا وجنة النبي صلى الله عليه وسلم بدعة قالي هذا ضربته إن هذا شو يا بدعة قالي هذا بتاعنا يبسطه محل جاجا بهين يا لا قالية صوما وقاس هل دولار رتال قاضت ذهب سو يبس يا وكو قيني هروح ما قيني يا كعب ما نعنع كو يبس الله ودي نعنع سيسو ذهب ما قوي كني سيداس درادة هذا شنا الله ربطه وح قالي الله يوم علمي قول لي يلا أن كنت دالنو أينو عبادة إن صحنون دين تأينو برهنو رج يضمر ده يضلني يرو لما أنت واجب إنه قط قضب كاس ده هذا كيوجد وقضب كلواده إنه واجب كه وإن دين تاني إلهي وحوسه ده شيء إن لو قد رقمه أينو رقم كديكانو إلهي دين تاني وحوسه ده شيء دين تاني وحيكو صاب سنتا عقيدة ديننا عقيدة بصحيح عبادة ديني بصحيح جناح السجاني بصحيح قانون كي نلاشوا دولة دي بين نظام ودشينيس دستور كي لوكال السعودي علاقات كي ومضاها كلام لا يلان لهيون أخلاق دي وي حير كي قيس كوي شؤون تي أرميه بالشدة وي عروقاس وحي كتك طيب الشيء والنظام متكامل ودما يسترون حتى وحكى الإسكندر سولي كمان عارف سولي كسر نلاش قيب يرى بسيط أما أدو ير هذا السولي كي بين نظام ودشينيس يا سولي كآداب أنو قال لي آداب أنو قصوا بحنا ما ترى والشريعة السولي إنه قوم مع مشي دولة دي الشقة كمال يايري والشريعة السولي قوم مع مشي بقاله الشقة كمال والشريعة السولي قوم مع مشي الدستور كي النظام كي الشقة كمال يايري وركاس ورسعنا يا ما والدين مركا كامل سيدة دوينا نقاضا الله بوحي ينيري يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة إسلام لماذا قال إذن كو إذن هكذا الريبنا إن الدين تكلم حلطات هذا أنت نيدم بيسي أنت نوا وي أنفع ذا أنت ندينا حيقدك وعز صعنا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض والدين كان إلهي بكود يميد محال قارنا وقتك سنقارنا وقاضنس صحما دين تن وحي تبري إنودي دماش هذا وحي أنا وودو وين ماش هذا وإلهي بني آدم كتبرتي سوكو كلف لكن إن الدين توضى قاضنه كو عمل فله قيس كينا قريهنا دقالهنا كسب كاغا يا ضد با كسب كودي ماشي وحكيه ليان فريئة وحربة وحر حلال إيه حرام ما كلا يقانو وح الله وحي قعنتي سسوق لبا شايفكو قشدا اسمه ويديه ما حد ديني أوقشها محو إلهي أقول هي محل ديدي ما بكور هيو ها واتي الصومالي هذا كورتري وحن كعنين بوالله عنا الصومالي وتاس مهماد وتا وحن كعنين بوالله عنا بمعنى وحوي وحكست اللقوة وح الله واحد دشين كرتبه دش حلال هالنقضة حرام هالنقضة ورمه هي سيد الصحة وحوي وحي شرع عدد كو أوقشه ألا كو حلاليين قاضو وحي حارانا إسقط وين الدين تلقالها جمامش وين الجوري جمامش وين القيس جمامش وين هوين تاد حجابت وين المها قاعد نقضه وين الدين تسيب وحده أي نوض قاضن إلهي بسود الدشيء تبارك وتعالى إنه نوض أقبل نوي قضب كاسينا وين الدين تدقن إنه نقط وأولا ليلا إن الدين تنكون نقولين مرتي يا سومتشران ضد مسك شاقد نص عني ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب اسك شيء يتشعيل وحكم السعودات لكن وحويان هداد حمان لا تمادنا أبال كذا هلي هداد وناق لا تمادنا أبال كذا هلي وعمل واحد مركين إنه الدين تعمل وقادر قضب كاسنا وقضب كلابات نعمة الإله إن السيء إنه كجش شكرين قضب كالصدحات وحويان دين تن إلهي إنه سود شيء يخير كانوا إن السيء وحواجب إنه قنا ضد كجارسينه لحد إننا إسجارسينه ومد وحي إنه نهاي إلهي كتل ماما إنه نهاي ومضها أو خير بدلنا لكن صدح قضب مركي اللي نجاه لأنه ومضها أو خير بدلنا حيث هاي خير كأنه ضد كفرنا حمانتنا وكربينا الله نوان رمينا أنت اللي نجاه لأنه ومضها أو خير بدلنا هدي اللي نجوا يصومها خيرية إنه والله ما يسار مسؤولية حل بالين صاروا الدين إذن كان لين كوجي فافي عليه
ummadihii kale inaga horeeyay reer bani Israa'iil iyo ummadihii hore markuu nabi ka dhinto nabi kale loogu bedeli jiray markaasoo xilkii meesha ka sii qaadi jiray laakiin ummadeenu hal nabi bay lahayd soo saasma hal rasuul baynu waa nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam rasuul kama dambeeyo nabina ka dambeyn maayo xilkii yaa la wareegay marka war xilkii diinta yaa qaaday ya uma inaga qaaday ma wadaadada bas qaaday ya wadaadada kaliya uma qaadin waxa wada ummadoo dhan baa wada qaaday ganacsadaha qaaday mas'uuliyadii xil baa ka saaran diinta inuu kaalintiisa qaato Soomaaliya hooyada qayb baa ka saaran odayga way aragga qayb baa ka saaran madaxda awoodda haysa qayb baa ka saaran caalimka diinta yaqaan qayb baa ka saaran qoraaga qora qayb baa ka saaran ninka mudiic ee media ka shaqeeya qoraaga qora qayb baa ka saaran ninka mudiic ee media ka shaqeeya mas'uuliyad baa ka saaran waraad mas'uuliyadu waa inaga dhaxaysa soo saasma Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu ya ayyuhalladheena aamanu kunu ansar Allah wardadka mu'miniinta ahaw kuwa ilaahi diinkiisa u hiiliya noqda lama dhihin culimadii lama dhihin dumarkii lama dhihin ganacsatooy lama dhihin laakiin maxaa la yiri wardadka mu'miniinta ahaw war ganacsado soo mu'min mati ya oo madaxweyne soo mu'min mati oo wasiir soo mu'min mati oo hooyo soo mu'min mati oo dhalinyaro soo mu'min mati ya ayyuhalladheena aamanu marba hadaad iimaan leedahay mas'uuliyad ba ku taal oo maxay ah kunu ansar Allah ilaahi diinkiisa kuwa u hiiliya noqdo waa mas'uuliyad marka inaga dhaxayso ninba qayb uu xambaarsan ninba qayb ku aadan mas'uuliyada marka aan qaadno oo aan diinteena xoojino oo aan diinteena faafino oo aan diinteena dhulka ka qaadno oo diinteena markay nolosheena ku soo noqoto ilaahay waa ina barakeynaya tabaaraka wa ta'ala waa ina barakeynaya maxaa ka fiican walaalayaal war inaad ilaahay adeega u noqoto shaqaale ah cid shaqaale loo noqdo yaa ugu fiican Allah mathalu a'la laakiin hadii fariini ku timaado oo lagu yiraahdo Abdullah Maxamed oo he fariin baa ku timid oo maxay tahay fariintaas Abdullah yow xafiiska madaxweynaha baad shaqaale ka noqonaysa caawa maxaad sameyn lahayd ya caawa waxaan u meel farxad inaad la seexato ya shaqaale inaad noqoto ka waran hadaad Allah koonkan iska la shaqaale u noqoto war ma wax ka weyn baad garanaysaa shaqo ka qiimo badan ma jirto haday shaqo ka qiimo badan jirto nabi maxamed baa loo dhiibi lahaa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi rusushii iyo dadkii akhyaarta baa loo dhiibi lahaa shaqo ka fiican ma jirtee aan diinta u shaqeyno oo mas'uuliyad inaga dhaxaysa weeye nin walba qaybtaada qabo nin walba xilkaaga la wareeg nin walba kaalintaada ka soo bax diinta ilaahay tabaaraka wa ta'ala aynu faafino oo aan isugu tagno insha Allah ta'ala ilaahay waa ina barakeynaya intaaba hadii la inaga helo iimaan iyo Allah ka cabsi iyo diintoon ku dhaqano wax walba waa inoo barakoobay Allah muxuu yiri walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-samaa'i wal ard walakin kadhabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun dadka mujtamacaadka magaalooyinka degani haday laba qodob isku dari lahaayeen iimaan iyo Allah ka cabsi haday labada isku dari lahaayeen barakaadka samadana waa loo furi lahaa kuwa dhulka ku jirana waa loo furi lahaa war samada maxaa barakaad ku jira barakaadka samada muxuu yahay waa naxariista sooma roobkii baan kala go'aynin dhulkana maxaa barakaad ku jira war maxaa khayraad dhulka ku jira waa wax ilaahay ka deeqtooyay tabaaraka wa ta'ala sooma yani shidaalkii baa ku jira oo macdantii baa ku jira oo dalagii baa ku jira oo daaqii baa ku jira waxa soo dhan baa idin soo baxay dabiicdii korkuna iyaduna waa iyadoo dararsan bay iimaanaysaa cirki baa idin daayay oo inta hadaad heshaan yaad u baahantii war yaad u baahantii ma cid kale aad u baahantii waaba dhareegnay inta maxaa lagu furtaa waxa lagu furtaa walaw anna ahla alqura aamanu wattaqaw iimaan iyo alla ka cabsi iyo diinto lagu tooso intaas fura ah ilaahay waa ina barakayn tabaaraka wa ta'ala hatta wax yar ba barakoobay waxa xadiis nabigeenu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam aakhiru zamaanka marka diinta loo noqdo oo dadku diinta ku dhaqmaan xabada rumaanka ilma yar hadda gaajo kama saarto
xabadda rumaanka aba waxay deeqaysaa rag koox ah intay dhirgaan bay ka dhaqaaqayaan hasha irmaan hal ruux hadday deeqdo way dadaashay hasha irmaan rag kooxaba intay caanaheeda ka dhirgaan bay ka dhaqaaqayaan sababtu maxay tahay waa la barakaynaya dalagii buu galaya oo daaqii buu galaya oo barakadu meel kasta ay galaysa sababtu maxay tahay diinkii rabbi baa lagu dhaqmo sooma diinka marka lagu dhaqmo wax walba waa barakoobay laakiin diinta marka laga tago aafaad oo dhan baa dhacay waa kuwan maanta ina haysto maxaa ina haysto waxa ina haysto waa waxaas Soomaali marka maanta u fiirsato dal wax walba yaalaan baddi ugu dheereyd waa badda labaad ee Afrika ugu dheer hal wadan baa inaga badeer oo South Africa wadanka labaad ee Afrika ugu badeer baan haddana maxaa khayraad ku duugan dalkeena iyo marka la isu fiiriyo dadkeena aad buu kala badan yahay waa wadanka kaliya heli karto 200 kilomitir intaad socoto hal axada inaadan ku arkin waa banaayahay waa wadanka adduunka marka maanta la isu ururiyo aan u malaynayo khayraadka xoolaha nool inuu ugu badan yahay geela iyo ariga iyo lo'da iyo nooc walba waa wadanka badda iyo waxaan u jeedaa dalaga iyo khayraadka iyo waxa ku duugan ilaahay ogsoon waxa soo khayr inagoo dhex fadhina ilaahay baan idin ku dhaariyaa maxaa qaxootiga inaga dhigay oo maxaa meel walba inagu duleeyay oo maxaa saay inoo galay oo maxaa gaala gacanteena u hooriyoon u dawarsanayna maxaa saay inoo galay idin la taa cuquba inagu dhacday soo saasba cuquba inagu dhacday cuqubaduna xagee ka timid cuqubaduna waxay ka timid wixii aan khayr ku gaari lahayn baynu ka gaabinay sidaas daraadeed caanadaatay dabadooda la qabtaa jid habeenimo laga lumayna maalin loo soo noqoy aynu soo noqono oo walaalayaal aynu diinkeena xoojino oo aqoonta diintana ha lagu dadaalo dhaqankiiyo ku camal falkana ha lagu dadaalo adeega diinto loo adeego loo shaqeeyana oo mujtamacu iska kaashadana insha Allah taala aynu ku dadaalo saddexda qodob ayaa shukri u noqon kara nicmada iimaanka iyo islaamnimada Ilaahay inoogu deeqay tabaaraka wa taala Ilaahay iimaanka iyo islaamnimada ha inoogu sugo aqoonta diintana Allah inoo furo Allahna ina waafajiyo u dhaqankeedii ku camal falkeedana Ilaahay ha inoo fududeeyo dadka u adeegay u shaqeeyay liibaanana Allah inaga dhigo tabaaraka wa taala jazakumullahu khayr wa barak fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh جزاه الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى شيخ كابل مريا كلمات كارنتي قالقة إننا إلهي سبحانه وتعالى هنا وانفعه فضيلة الشيخ محمد عبد عمر رنتي وحا إلى سوق بين ولا لها محاضرة لقي سنة سؤالات تربضا قاربضنا كم يسكو حبيت المامية بس إذا وجد حبت بين ذاك سوق عظيم أو حيسكو موضوعه سؤال شكوى بعد يا شيخ إنه يديننا أنا والله بس سؤالات سرعة عندنا إن شاء الله وحي شيخ تلمام يسا أو يسائل كان إليه هاي محي علماء دوروين يا وعي قلين وقسمين وايين قبيلك أما قبيل لذا أمر غيرها لا تكورا سوماليدو أي تكوران أي بحيان قبوية أما ميدكو تاسي وحويان وساشكو بعد وسيدي وسائل كوسا قري سؤال شلبات شيخ وحا وليه هي واحد نوغا ورهنتا وحا لو يقانا أما سوماليدو أي تقانا إسكو أستركا أما إنان با إنان فرحمينيا وأوريسانيسا وحا الله ورانيا والله إسكو أستري بل أنت أنا شريعة محيكا قبتها بسم الله الرحمن الرحيم قبيلوين كان الصوماليات للظلمية آفات كينا هايستا عقوبات كينا هايستا وحيالها أي كرد الشيم بكمت ومط مسلمة ولا لهنا وأن ميدا بينجي قد سنين وإنن كقرح سنين وإنن كفي عنين
ووحن كيجي تسنى هو يرتعين الشرين إن لا يصه ولا حقره ولا قرصه وجاهليه النبي قالنا صلى الله عليه وسلم وحكوت المامي دور الرماد ومدني أين كتجين وجاهليه دي كسوت شيء ولا كرين أيه وحكم ذا إن نصب كالوقوفها أبترك الله يسكوي الصف وأرمها الجاهلي قابو نبي كتل المامي صلى الله عليه وسلم ومداسي علماء رنتي محاضرات بدن ويكقبتين وميلا بدن تبدا هديت هاي ميلان هذا مريني سعدال كان آد بالوجه لكن وعادة ويناتي أو بان اللي سكاشده لسك كاشده نظامية يو دولتها أمضوا لسان إني قيب كقاتان علماء إني قيب كقاتان أقوياء هم إني قيب كقاتان إلا بربريو رقم كاس خريبا يعني كاني إن لا يصح ضدك ولا لهن وعندي لها حلقة سكية متشرو إن وحصل له حليو رقم حمداس الجاهلية ده إن إسلام كله حليو وحكة سكية متشرو هران نواجي هراء لسياسي شري لسحقري شري إسلام كإلهي كحلي والنبي صلى الله عليه وسلم إلى هير وكجارسي حتى ذاتك لا يسجري إن أمضى مضح النقدان وأيجو أي علماء النقدان وماشي أي شوجين دينتو كسوقاته ماشي لا دقي اللي جود المية وحربا إيجانا إن يرنتي دير هذانو حق الدين تان لوجا في عنان ورشاد الدين تا ودقن كذا وأذيجي ده عز وهالكاسو كتيرا شرفتنا هالكاسو كتيرا وحكى له حقيقة حيالها الجاهلية ده إن إسكبر بري دونا مد ويان هرت دعوة صعته ومدي الدين باكو صعته بدلس مد لبعض ويان ومدي وحاكو صعته مقالو هدين لما قالوا بنا رقم مدي باديها وحاسي سميي وبابا أيان ستلقائي وبابا أيان سيداس دراديت أرنتاسي وأرن مدن رنتي إن لسيو حق إذا لسيو ولقد دالو ومد لقى برارو تشيو دتكني وقبيل معيك القدسان هلا هذين لكن هو قبيل كرامة ضله وشرفت ضله وحق ضله ومركي أتبقى شرنتي صوت محي كتمي وحكم من اللجوش على الأركمان يا وحكم من اللجوش على الأركمان ورمحات كويس دينا داتنا وحلقيا من يقول هذا هو أقعد صدان ويان أقعد سنة نبي محمد الصحابة يسأل أقعد سنة شري يا سو قرآنكم مش إيه ورم أقعد سوى لسكويا صح ونبي محمد يا كفي عنا صلوات ربي وسلام عليه الصحابة ديس قار كم إذا وحن شرين بيكون شيء كل ذلك وحن صل يراتون الصواب لو ما أيو ضد كاس لوجويا صو ضد كأولا له هنا مركز سوى الجرأة وإن لوجو جرمة إن ظلم قال الرفعيه وحقال لوجا نحا قال هذا واحد دنيان ضد كنوع عاصو كلو ضد كأنت بدن وحتر سنية ومجتمعات كيكون حنوليه وحكتر سنية والله جاي أبا إني عقدت كشيء ظلم لوج يستدرته قال هذا دنيس هي أدهس بهوست كجتشر مركزا وحي كليين هذي ولا لها كظلميين أنك ولا لك وأكالي ميلاد عز يا الشرف كوهلي بانكو جينين وهذا قال هذا إني قعنت وهوريس أنك أنا آني يصنع ما قربه يا والله إني سكرها أرنتها الإسكاكاشة إن شاء الله تعالى وحن لي أبي ونأذو لي سومالي سيدي أو محوها ويا سيسي أو قور سنيس ما ننتي اللي مقع وحبال لقوه لهي صف بالله قلي سوسا ولا مسحته أنت سومالي ميتجام بنا هي كودي بمواديابي أو يوروبي بهاش يكوكش مركو النفع لقى هلنا والله شيئا مركا كلامنا نين كذي باللقوه فوقين ورنيو كلا داية هلا كلا داية أرنداس وحن لقى مرمان أرنتي سوى ذا الشرع إن الله تقالمه وضدك ولا عليه هنا الصواب أن لو قلنا قنين الدين تذكر النوبان أيجنا إن شاء الله تعالى خيرنا الرجيان هوشان إن شاء الله تعالى إن لقى بحضانه قلبك يكشدان وحي لقى بحلان أيجنا كقب قاتان
annagana waa ballan insha allahu tacaala waa ballan horeyna culimmadu waa uga hadli jirtay ballanna weeye insha allahu tacaala intii suurtagal ah hawshaas inaan riixno haddii alla idin jazaakum allahu khayran arrinta isku asturka gabadha ama inanta inta xumaanta lagu sameeyo uurka qaadaysa ee la leeyahay la isku asturo waa arrin khaldan waa midda koobaad wixii waa wax soo baxo horta wax asturan ma ah waxaad asturaysaan muxuu yahay gabadhani inay xumaan samaysay wiilkani waa la ogyahay inanta ilmahan meesha ku jirana inuu xarig la'aan uu uur galay waa la ogyahay maxaad asturaysaan marka khaladka weyn ee la gelayo wuxuu weeye ilmahan ayaa loo socdaa in loo sameeyo aabba aan aabbihii ahayn ya ilma aan xarigga ku dhalan aabba miyaad u noqon karta xataa biyahaaba ha laga sameeyay shaaficiyadu waxay qabaanba ilmahaasi hadduu gabadh yahay waabaad guursan kartaaba adigana waxaad leedahay ilmaad ka dhiganaysa markaasaad muxuu ahaayey gabdhahaagii ku dhex darsanaysa oo uu maxram u noqonaya oo uu dhaxalkaaga qaadan doona oo imise xugun baa ka dhalanaya waxaasoo dhan baa khalad ku wada salaysa sidaas daraaddeed arrintaasi waa arrin khalad ah waxaa la rabaa ilmahani sharci darrow ku uurgalay waa in warkiisu cad yahay hooyadiibuu ku abdirsadaa waa ina heblaad ina hebel maba ahaba waa ina heblaad abtiyaashii xagguu aadaya laakiin ninkan muxuu ahay khaladka galay iyo ilmahaasi waxba kama dhexeeyaan warku hadduu saa u caddaado gabadhii ma mehersamaysaa mise mehersami mayso ilmihii marka gooni loo saaro waa masale kale markaa laakiin waxaan aan isku malmaluuqayno ee aynu isa saarsaarayno waa khalad loo baahan yahay in meesha laga saaro allahu aclam sheekh su-aasha xigta ama su-aasha saddexaad waxay leedahay maadaama muxaadaradayna ku jirtay cilmiga in la barto ama diinta la barto aadaabta looga baahan yahay qofka diinta baranaya bar wax looga tilmaamo su-aasha xigta waxay tilmaamaysaa dukaan baan leeyahay ama dukaan baan leeyahay dukaankayga sideen sekada uga bixin karaa bismillahi raxmaan raxiim su-aasha hore aadaabta cilmiga loo dalbo horta niyada hagaaji alikhlaas niyada cilmiga waa inaad ilaahay dartii u dalabto qodobka labaadna waa inaad dadaalkiisii la timaado cilmiga markaad dadaalka ugu dambaystaa ku bixiso ood kulligaa isa siiso buu nis ku siiyaa baa layidhi markaad aad nis siisana rubuc buu ku siiyaa sidaad u dadaasho wax kuuma siiye qayb buu ku siiyaa cilmiga marka juhd iyo dadaalna waa u baahan yahay qodobka labaad aadaabtu u baahan yahay waxaa ka mid a inaad hesho nin sheekha oo murabbi ah oo ku tarbiyeeyo ku tilmaama halkaasaad maraysaa kitaabkaa ku xiji qaabkaa samee murshid sheekhana waa u baahanta waxaa kalood u baahan tahay cilmiga inaad tadaruj hoos ka bilowdo mukhtasaraadka tartiib see u kala horeeyaa ilaa marka dambe meesha sanqaafka ugu sarreeya aad gaadho haddaad kor ka soo gasho ama dariishadaba ka soo gasho waxba kuu bixi maayaan waana mushkilada haysata dhalinyaro fara badan maanta oo cilmiga waxaa ka mid a cilmiga inaad ku camal fasho cilmiga markaad baranayso inaad akhlaaqdiisii leedo dhaqankiisii leedo aadaabtiisii leedo haddaad noqoto arday edab daran arday eel suuqa afxumadiisa iyo dhaqan xumadiisa iyo akhlaaq xumadiisa waxaad moodaysaa ilmaha darbi jiifka ya dee markaas cilmigaad baranaysaa awa ilan cilmiga aadaab saas daraaddeed baa salaf intaynan maadada cilmigaa bilaabin bay waxay baran jireen aadaabtay ku hormari jireen waa la edbin jir annaga waxaan soo gaarhnay xilligaan xeerta ahay kitaabkii kutubtii ugu horreysay naloo akhriyay waxaa ka mid ahaa tacliimu lmutacalim ariiqata tacallum soo maa sarnuuji aadaabtii baa nala baray xataa marka waxaa nala baray sheekhaaga intaad u jirsanayso xageed ka fadhiisa seed ula fadhiisa darsiga seed u dhowra wixii oo dhan baa lagu bari sidaas daraaddeed waxaa laga maarmaana in aadaabta la ilaaliyo inaad culimmada toos uga qaadato cilmiga haddaad heli karto haddaadan heli karinna cajaladaha iyo wixii kuu suuroobi kara ka qaado waa haddaad weydo sheekhaad wax ka akhrisato oo dee markaasi nin biyo waayey gebagabaysay soo ma haddaad biyo weydo maxaad samayn oo tukan rabto soo boodhaysan maysid cajaladda iyo muxuu ahaaye internetka iyo waa boodhays
laakiin ninkii sheekha heli karay sheekha wax ka qaata oo culimada la fadhiista laana maadada waxaa ka muhiimsan sheekha aadaabtaad ka qaadanaysaa ka muhiimsan saas daraadeed cajaladuhu waxay soo saareen iyo internetku dad waxoogaa afaray tuuran kara laakiin edab daran edab daran aadaabta cilmiga male sababtuna waxayba marka horeba ka bilaabanba sheekhan cajalkee wax u akrinahay waa sheekhu u taliyaba markuu doono madax kaga istaago iska damin markuu rabo daaran nin sheekhiisiiba ku tasarrufay bini aadanka kale muxuu ku samayn doonaa soo akhlaaq khariban la soo bixi maayo sidaas daraadeed muhiim waxaa inaad culimada toos cilmiga uga qaadataan haddaad heli kartaan haddaadan heli karaynin markaasi dee waxa weeye muxuu ahaay wixii dantu kaan baaran siin weyda markaas adaabtaas iyo kuwo kaleba waa loo baahan yahay masalada xigta dukaankayga seen uga sakeeyaa waxaad uga sakeynaysaa dukaankaaga horta waxaad hubinaysaa sakada ma lagu leeyahay mise laguma laha seed ku garanaya sakadii gaadhay iyo inuusan gaadhin 85 gram oo dahab ah suuqa maanta intay ka joogaan intaad soo qiimayso haddii dukaankaaga markaad qiimayso intaa uu gaadhi karo 85 gram oo dahaba qiimahooda hadduu gaadhi karo sakadii waa lagugu leeyahay hadduu intaa ka hooseeyo sakadii laguguma laha waxaan u leeyahay sidaa dadka qaarkood baa waxay u fahmeen kutubta waxaa ku qoran diinaar iyo dirham 200 dirham iyo 20 diinaar waa dahabkii iyo fidadii lacagta ahaan jiray marka si wadada qaarkood waxay u fahmeen 200 dirham baa waxay u fahmeen 200 shilin farqi baan u dhaxay markaas waxay yiraahdeen ninkii 200 shilin haysta sakadii baa waajib ku ah war 200 shilin oo Soomaali ah nacna xitaa ma goyso سيسك اللي يقوله وهو فقير فهم كقلعضي مرك فهم كقلعضي وعلى جهل اللي وحي هاي معدن قالية في الضد قالية يدهب قالية وحننا ووحكله ساس درادي وين يجي اللي عليه سديتني 5 جرام ذهب هذا هنتي دادو قاعدو سكدي ولا يقوله هذا كيرتها اللي يقوله مركاد اوغاتين اللي يقوله هي محاد سمين دكان كاغا مركي سندكو سو وريغاد قيمين alaabta taalaad qiimeyn maxaad ku qiimeynaysaa sicirka maalinka ay suuqa ka joogto ma aha qiimahaad ku soo iibisay asalka waxaad soo siisay ma waa khalad ganacsatada ku dhaqanto waxaad ku qiimeynaysaa qiimaha aad suuqa ku iibinayso maalinka ku joogto markaad qiimeyso badeecadii ku taalay oo ku soo baxdo waxaad ku daraysaa lacagta cadaankeed haysato waxaad haddana ku daraysaa deynta kuu maqan ee dadka aad ku leedahay rajada leh ee aad rajaynaysa inay kuu soo noqonayso soo saddexdaa iskumaada darin waxaad ka goynaysaa deynta adiga lagugu leeyahay halka maxaa ka soo baxay wixii halka ka soo baxa ka sakay marka saddexna waad isku dari halna waad ka jari ma fahanteen saddex waad isku dari halna waad ka jari wixii soo baxa ayaad marka ka sakeynaysaa oo ka bixinaysaa boqolkiiba 2 badh labadiya badh boqolkiiba ayaad marka ka bixinaysaa qaabkaas aad marka uga sakeynaysaa wallahu a'lam su'aasha taasha waxay tilmaamaysaa wasaa'ilku waxa uu leeyahay weysiisan karaa anigoo xiran dharka hoosta laga xigo keliya isagoo soo galaysaa سؤال شكرا لله على يسوع شيخ الشيخ مشروع الصلاة هدي الويدو محاكي على عمل السؤال الشهوري هو المويسي سنكر أنا درجة ونحنا ويسدوا يصحي سادو قاون لأن ويسد الشرط وما الروح إنه أستورين شرط وما صلاة دي شرط وطهي إن أستورين تبركة كنيس أما ويسد ويصحي سا هداد قاون تهي هداد أستورين تهي مرمرك قاركود أدو قاون بعد ويسيسنو هدي مثلا قبيسان يسو النبي صلى الله عليه وسلم مركو قبيس كيسو دياريو حبين كتران كو دقي جري كدبنا ويسيسن جري دور قاب لو قبيستو ميد كميدو waa weysiisan jiray kadibna biyuhu isku shubi jiray
inta markuu sameeyana waa weyse qaba waana qabaysta marka adoo qaawan waa asaxaysa weysadu laakiin salaadan asaxaynin adigoo cawradaadu banaanta taa waa mid labaad khushuucda salaadu horta waa asaaska way salaadaada ajirka aad ka helayso wuxuu ku xidhan yahay kolba qadarka aad ku khushuucdo waa kii xadiidka Abu Daawud ka nabiga sallallahu alayhi wasallam dadka qaar baa salaadooda 10% helay 9% qaar baa ka helay 10% qaar baa ka helay 8 qaar baa nis ka helay kolba qadarka salaadaada ku khushuucdo khushuucay maxaa tahay khushuucda waxa la yiraahdaa in qalbigaagu joogo waxaad akhrinaysa uu la socdo imaamka haddaad leedahayna wuxuu akhrinaya inuu qalbigu la socdo alla ka cabsi iyo dareen iyo muraaqabo alla inay ku jirto qalbigu markuu khushuuco oo uu hogto oo uu dareen qaado rabbiga baad hor taagan tahay xubnuhuna markaa waa inay dhaqdhaqaaqa joojiyaan ama dhaqdhaqaaqa yareeyaan marka waa khushuucda taasa la yiraahdaa khushuucduna waxaynu nidhi mu'miniinta tilmaanta ilaahay uu ku tilmaamay kuwa ugu muhiimsan bay ka mid qad aflaha almu'minuun alladheena hum fi salatihim khashi'uun waxa nabi ka sallallahu alayhi wasallam inuu yiri aakhiru zamaanka waxyaalaha la qaadi doono waxa kamida khushuucda ila aad masaajid weyn soo gasho oo ahad khushuucsan baad ka weydo waxyaalaha umada laga qaadi bay kamid tahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka khushuucda sababta ay kugu suuroobaysa waxa kamida inaad dareento horta yaad hor taagantaa inaad dareento ilaahay inuu ku fiirinayo tabaaraka wa taala in waxa aad akhrinayso macnihiisa adaad fahmayso aad raacdo oo mashquulin inaad mashquulka adduunyada iska xidho inaad shaydaanka ka cawdu bilaysato inaad qaabisho salaadaada qalbigaaga iyo xubnahaaguba salaada qaabila asbaab noocaas oo kala aba shuucda keeni kara insha Allah wallahu a'lam حاسكيسي أنا كبري وقبي أيوة دلي مركو دلي كده بانكي لحراي يسموه هو يلي دلي بقى ينتي سيبا على صوت وانا هو يلي دلي كده ينتي مبحيوني كي كصوت وانا يبسي لو كنت تيجي تشوفي مركزا واحد يسوق بسداني أنت هو بحب كرايا ما بحب كرا تسمع مين تحتانا واحد يسوي كل يعني تذكر قرآن يحوى أبريا أما طول اعتكافه صلاة ما كحنا كلام mid hore oo ninka xaaskiisa dilay wal ciyaadu billah yaani inaad xaaskaaga disho waa wax Ilaahay laga magalo tabaaraka wa taala nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu diiday garaacista caadiga ah loo diiday Allahumma inay xaaje timaado mooyaan marka xaaskaaga inaad dishay waa arin culayskeeda la waa Ilaahay naguma imtixaano haday dhacdo dambiga uu ninkaasi galay gabadhiisa inantiisa bixinteeda iyo wilaayadeeda ku waayi maayo laana wuxuu ku dhacay waa khalad goonidiisa u madax banaan waa ithmi iyo dambi weyn oo goonidiisa u madax banaan wilaayadii inantiisa inuu guuriyo ahaydna ku waayi maayo wuxuu waayi lahaa hadduu gaaloobo hadduu diinta ka baxo ridoobo ilaahay tabaaraka wa taala cid gaal ah muslim jid uu wali ugu noqdo ma samaynin laakiin intuu muslim yahay oo san diinta ka bixin gabadhii inantiisa wilaayadeeda isaga iskale inantiisa isaga bixinaya isagana laga soo raadsanaya ninkii yiri de ma guurin karana isaga la weydiinaya hadduu caamo yahay de warkooda laguma jiro saysan kama hadli karaan hadduu culimo yahayna de meesha ku taala in la waadiyo baahay laakiin inta aanu garanayo
وأنت شيخ محمد إن شاء الله وتعليقين دون هديون الغيا وين وحي يجهز بحين بعد حكت الله أعلم سلة حكته قبورها ضدك الجرا وحي كر هذين أيام بنقرن له وقبورها معاشرة على الرأس هذا قبورها ولا سيارتها وحنا لو سيارتها لو السببات مدوية ضدك مسلمين تأه ماشي كتيرة إن لو سو دعيو لصو سلامو السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يقال له سو دعينا يا لصو سلامي قضبك لبعض الله تقى وحويان إن أذوق قلبك أقول كسر شلعه عندها أقول كو الميان آخرك وحسوسته صوما لكن إن ضيقي وحكر راسته لو بدعين له ومحوها يا ميت كان مسكين كميش كتير ورمع أجيال وح أجيال لما تشر وأون ضدهم بقى ينقو خلطة ينقو خربي مويه وح أجيال لما تشر ومركي ديتين معه صقر لي شالي مركي إن لا تشوجين وحن ويدي سنة ما ينقبن كرين يقول النار روبنا ما ينكيني كرين روح تشرنا ما ينعافين كرين يا رزقنا كمسين كرين ما مركي ديتين بقى صقر لي يا وراود وصقر لي مركو دينتي كدي ناكتي سل الدمالة يمكو دفاع ده يا وعقلك وقدوس يوم وحوليه سل قيب سنة يمكو عشرة رجع أود بس أكر لي بالله رولك يعركوا كلاهيا وروح ما كلاهيا مسكين مع عذابيه هاي مسمى عذابنا الله يسكو هيا حال وكسوين يا إلهي باقرني ساس دراديد بان وجود عيني الناس وما ننكي مركب قبري وحكرها السديد لفعت بوتوبين كو هيا يا لفعت بوتوبين وأنا وررسن دينتنا كوررت وأنا الجاهل والجاهل القرآن كاتل ما ينو جاهلي قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ورموحان الله هنا عبودات فريسان كون جاهلين تو نين كجاهل سنمتشرو عد كلا قرن لا حق الرب يا حق مخلوق يا تطنتي حق هذا هي حقي الله لها روح كلا قرن لا عد كجاهل سنمتشرو إلهم القرآن كفسره وبخاري كفسره وفقه كأخريه عد كجاهل سن الله ما أبوه معي الحق يقوم مهم سنة أبو بكر لا يهاي وإلهي مخلوق وحي كلا لا يهاي بابا يسقى قسم سيداس درادت روح قبور تبرية عيدان إلهي أهين برية توغي وحكرات سنة إنه وحتري كران رميسان لجود بتوكن معي سجابا لجراني نتيسو إنه أصحي دونته هذا يوسن كلافن والله أعلم. شيخ صديق كريم حولي هاي محمدينتو كقبتا صورك أما فيديو على إسكادو سيدا محاضراتك يدنا نشيدا فائدة له سؤال شكوبا سؤال شبابي وحولي هاي وحشاك مهدين إلى هو محي شروط قفك لو بدعين كرا ولو كرا بدعين أما أنا لو بدعين كريم بسم الله الرحمن الرحيم دورنا فيديوغا هذه يصور ردو انت ان اركي كل علماء السنه دا waxay u badan yihiin inuu asalkiisu uu san banaanay laakiin hadii xaaje ama maslaxa looga maarmi waayo wuu banaayay lil xaaja ama lil daruura waxa kamida in mesela duruus lagu gudbinayo muhaadaraad lagu gudbinayo waxbarasho looga maarmi waayo dambi baadhis looga maarmi waayo مثلا دوكومنتي إن لغو سميست لوغا مارمي وايا وحي سيدا سوكالو داني كو حيرانتا مويان أسل كيسة إن لغو كلاحتاقا معه أسل كيسة وحي أون داني قشو دانتانا لغا مارمي كرين انتاسا لغا سور ريبا واسي مسألة مران كوچيرو أسل كيدا حتى كاميرا دا كوا لغو دوبايا أسل كودا قاركا دوت سنيهين علماء دا مسألة دوت دا يمران كيدو عاية ويا مسألة دا حكتا بدعاده محاضرتك دين لو بدعيه بدعاده وحكم وضل حكومي قال يسينت وضل حكومي
fisqi ku xukunku waa dad la xukumayo xukunka dadka la xukumayo waa waxyaalaha diinta ugu culus bay ka mid dadkood gaalnimo lagu xukumayo iyagoo muslimiin ah dadka iyagoo sunno lagu ogaa bidca lagu xukumayo dadka iyagoo taaca lagu ogaa fisqiga lagu xukumayo waa baabka la yiraahdo baabul asmaa wal ahkaam waana abwaabta ugu culus bay ka mid waxa loo baahan yahay marka in aad looga taxadaro kow ruuxa bidca lagu xukumayo waa in la xaqiijiyo waxa uu ku dhacay inuu bidca yahay ee uusan ahayn dad badan waxa ka khaldan waxyaalaha aan bidca ahayn bidca ku sheegaan masaa'il fiqhi oo khilaafiyo oo ijtihaadiyo bay bidca ku sheegaan markaas dadku ku xukumaan sidaas daraadeed arrintu horta waa inay tahay bidca xaqiiqi oo rasmi ah marka labaad ruuxa ku dhacay waa in xujada lagu oogo shuruutii waa in la helo waa in xujada lagu oogo wax loo cadeeyo mawaanicdiina meesha ka baxdo maxaa u geeyay waa in la ogaado war ma ta'wiil baa u geeyay ma jahli baa u geeyay ma qondara u geeyay ma siday ula qumanaad kadibna waa in xujada lagu oogo shubhadana laga saaro markaas la xukumi waa sida shuruuda gaalaysiinto kala waa ta xigta waxa weeye dawaabida kamida cidda wax xukumaysa waa inay cid ahal u atahay culimo waa inay laana baabkani waa baab khatiir awi waa inay dad culimo ahal u atahay oo aynan ahayn lagu siidaynin dalabatul cilmiga iyo caamada waa inaan baabkan lagu siidayn hadii lagu siidaayo waxa dhacay dad badan inay iska gaalaysiiyaan dad badan oo muslimiin ay diinta ka saaraan dad badan oo daa'iradii ahlus sunnaha ku jira inay bidca ku xukumaan fawda soo baxaysa marka fawda iyo nin walba inuu ninka kale kaad u gooyo nin walba ninka kale inuu dirishada kala baxo mukhalifkiisa inuu xukun dusha ka saaro ciid iyo cara iyo xanaaq iyo dagaal ay markaa gasho waxa lumaysa marka diinta dawaabideedii oo dhammaan lumaysa wax walba ehelkiisa loo daay ruux walba ehelkiisa loo daay waxaad arkaysaa dhalinyaro fara badan markay masaa'ishu timaado masaa'ilu tahaara war weysadani ma asaxdo culimada weydiiyo buu leeyahay war salaadani ma burtay mise ma burin adeer ma garanayo culimada la aada war naagtani ma furantay war anigu baabka ma aqaan culimada u geeyay war beecani ma asaxay mise ama asaxin qaabkee buu ku asaxa maba akhrisanin طيب كور هبل ما مبتدع بقى سقي ابيه بقى مبتدع له وقال بقى مسوا مسلم ولقي بقال بصراحه ما باسلامي ور هيده ميشن اد كهليس يا ميشاد كبقيس كيفود روح مسلم ودينته laga saara ama bidca lagu xukumo iyo in salaada laga hadlayo talaaqa iyo nikaaxa كيفود طلاقي ما كفود تنا واد كدردرين تنا waxaad war culimada la aada war kulli culimada la aada kulli inta dhinac iska miraysa waxa tiraahdaa ehelkeeda la aada saas daraadeed masaa'ishan culimada iskale dawaabidaas in la ilaaliyo waa laga maarmaan wallahu a'lam jazakallahu khairan shukran tiyahay su'aalaha inta baysiinayay su'aalaha intii ay ku gaareen waqtiga ay ku hayo su'aasha inta shakhsan waxa uu leeyahay waxa jira filim aad la maanta wado filmaan aflaanta aad waxaan dhacdaa qoyskan dhammaantii ay wada daawadaan saameyn badanna ku yeesho akhlaaqiyadkoodii iyo dadnimadooda waa musalsalaadka waxyaabaha loo yaqaano weeye taasi waa mid maxaad ka odhan lahayd bay su-aashii kusoo gabagabaysan tahay su-aasha xigta waxay tilmaamaysaa sheekh waxaan maqlay in cunista waraabuhu ama waraabaha hilibkiisa in la cuno ay bannaan tahay taana maxaa kaloo sheekh ka odhan lahayd بسم الله الرحمن الرحيم سؤال هوري oo qoyska filimada musalsalka isla daawanay jawaabteedu waxa weeye waa qoys khalad ku jira dambina ku jira cuqubana laga yaabo inayna aakhiraba u dibdhicina adduunka u soo hormarto sidaas daraadeed waxay u baahan in la yiraahdo ilaahay ka baqa haddana mas'uuliyadda waa la sii kale leeyahay ninka odayga ah reer kale ee caruurtiisa iyo xaaskiisa musalsalaadka la daawanay waa ninku ilaahay yiri yaa ayuhalladina aamanu quu anfusakum wa ahliikum naara
naftiinna iyo ehelkiinna naar ka badbaadiya wixii naar sabab ugu noqonay ninkii odayga ahaa ee fariinta la faray weeyaan ninka waxa sameynay waa ninkii nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati ila an qala sallallahu alayhi wasallam war-rajulu raa'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyati ninku ehelkiisu raaciyahay loo diray uu raaca mas'uulka yahay waana la weydiin doona ilaahay maalinta qiyaamada waa kala xisaabtami doona laakiin midoow adigii odayga ahaa ee reerka dhaqayayba hadaad xumaan u hormarto caruurtaada iyo naagtaada hala yaabo caruurtaada iyo naagtaada hala yaabo sababta waxa la yiraahdaa ida kana rabbul bayti bid-dufi dariban fashimatu ahlul bayti kulluhum raaqisun hadiiba odaygii uu kamanka garaacahay kamanka haduu isagu garaaco dadkii guriga jooga maxay sameeyeen وين دانس كعياران وإسروحان تأذكي بابا كمان كهيه صوما نينكا حل مسؤولية وين باوتال حدد حتى الدم بجليس عرورت هذه المها كقري هو الآفيسن تهاي حاس كقري أو هرتو دقات كهكوعن أو هرتو السجار كهكوعب أو هرتو ده وحكوها الليني يا إلا وحي بكافير سنة يا والد سي سبع المه والد كود وحي كو أركان وهذا في عين والد وحن ما بسمايه سياس ترى ده وحمك لا صار كرا مرك إلهي كبقى والله تبارك وتعالى أنت تكبق ذا وحاسي وحخلدن آخردي إني أدون كنا بديباته كي سنة إسكداي سؤال الله بعد وكسب سنة ورابها هيلي بكيسة لو حديث بصاره حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء كستو معله شيء كستو معله والدجاج الدور شوكتا كم ذاي هيلي بكيسو يعني ديسو حرام حديث لبعض بشرة وجابر لجوارينه والنبي صلى الله عليه وسلم قولي ورابه وأقعد هيلي بكيسة ما الله عني بالي والله عني بولي حديث كان واجرة سيدي اللي يسوى فتشين لها علماء المذاهب تكون كلا تجار مر تفاصيل هذا أنا ماشي قبل حين كريمة لكن مذهب كالشافعي إمام الشافعي عليه رحمة الله ومذهب كالشافعي وحكم ذي هاي علماء مرتي ورابها هي البكيسة والله عني كراه حديث كاسو عسكري وحوي وليبا حرم كأكتي سلوضة بورودة سوميدان صفية مروية مركا للطواف لا دحس مرة سوميدان السوق هلكا كو اللي تشريبا ورابها هي البكيسة لغو كلا إيبسن تشريو ننما إنكري تشريمكو لكن انت كذب waxay culimadu isweydiiyeen madhabku imaam Shaafici isagu wuxuu leeyahay waraabahaasi waa mid kan dadka weerarin alladhi la ya'du 'ala an-nas dadka ma weeraro bulay waxoogaa madhabku markuu socday kadib imaam Maawardi iyo markuu soo gaaray baa waxay ku dareen la ya'du 'ala al-hayawanat imaamka hadalkiisu waa 'ala an-nas gadaal dambe waxay ku dareen 'ala al-hayawanat xayawaanaadkii noolaha ma weeraro